muuqaalkan ka horreeyay waxaynu kaga hadalnay habka loo xalliyo mataanayaasha isla egta toosan iyadoo la isticmaalayo habka eliminationka loo yaqaano. Laakiin muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa habkaasi ka duwan oo loo yaqaano substitution method ama habka isku beddelka. Waayo habka isku beddelka markaa tallaabada ugu horreysa aad qaadaysa waxa weeyaan inaad labadan isla eg mid ahaan doorato. Tusaale tan hooseynu dooranay, tan hooseynu soo qaadanayna. Waxaynu odhanaa 5x plus 2y ayaa waxay kula mid tahay 5. Dabeedna labadan qiime mid ka mida ayaynu wareejinaynaa si aynu midkood u helno. Dabeedna 5x tusaalaan y-daynu iska wareejinaynaa ayaa waxay noola mid tahay 5 minus calaamadani waxa wata 2y-ga. Markaad wareejisana waxay noqonaysaa minus 2y ayaa waxay intaasay noola mid tahay 5x bay noola mid intaas. Dabeedna labada dhinacba waxaynu u qaybinaynaa 5. Xaggan waxaynu u qaybinaynaa 5, xaggana waxaynu u qaybinaynaa 5. x marka waxay noola mid tahay minus aan idhaahday 5 minus 2y loo qaybiyey 5. qiimaha x weeyaan. Marka qiime x oo aan ahayn qiimihii saxda ahaa balse aynu jidkiisa u mari karno si aynu u helno qiimaha saxda ayaynu hadda haysanaa. Dabeedna intaas waxaynu ku bedelaynaa halka x taalo. Waayahay mar kale aynu soo qaadano equation, laakiin la hayso equationtaynu intan kala soo dhex baxnay ta hoose weeyaan. Equationtana kuma bedeli karna intan balse waxaynu ku bedelaynaa equationta sare. Waxaynu ku bedelaynaa intaynu la soo baxnay tanaynu ku bedelaynaa. Waaya aynu ku bedela haddaba waxay noqonaysaa 3 times intanaynu marka ku qoraynaa meesha. Intan ayaynu ku qoraynaa halkii x taalay 5 minus 2y loo qaybiyey 5 loo geeyey 2y. Waan ka xumahay 2y may ahayn 5y weeyaan. Marka 5y ayaynu odhanaynaa ayaa waxay noola mid tahay 6. waa ta sare weeyaan. Okay, intanaynu isku dhufanaynaa haddaba 3 ayaynu ku dhufanaynaa inta sare. 5 haddaad ku dhufato waa 15. 2y-ga haddaad ku dhufatana waa 6y loo qaybiyey 5 loo geeyey 5y ayaa waxay kula mid tahay 6. bartan hal baynu u qaybinaynaa. Dabeedna waxaan raadinaynaa least common multiple-ka 5 iyo 5. 5 iyo 5 least common multiple-koodu waxa weeyaan 5. Dabeedna 5 ayaynu soo qaadanaynaa. 5 baynu u qaybinaynaa 5 hal weeyaan. hal baynu inta sare ku dhufanaynaa. Waa inta sare 15 minus 6y. Mar kale 5 ayaynu u qaybinaynaa hal waa 5. 5 baynu ku dhufanaynaa 5y waa 25y ayaa waxay noola mid tahay 6. Mar kale si aynu meesha 5tan hooseeyaa uga saarno xaggan 5 baynu ku dhufanaynaa. xaggana sidoo kale 5 baan ku dhufanaynaa labada dhinacba si ay u miisaanaato. waanu dhinacana u badan dhinacana u yaraan. haddaynu wax ka jirana dhinacana wax baan ka jiraynaa dhinacana wax. Iminka wax baynu ku dhufanaynaa marka labada dhinacba waynaynu ku dhufanaa. waayo labadan isla baxay markaa isku dhufano waxay noqonaysaa markaa 15 minus 6y plus 25y ayaa waxay noola mid tahay 30. labadan markaa waynu kala jaraynaa waxay noqonaysaa 19y 6y iyo waxaad kala jaraysaa 25y maadaama 6y-gu uu wato calaamad minus ah. waxay noqonaysaa marka intani 15 plus 19y ayaa waxay kula mid tahay 30. mar kale 15kaas ka wareejinaynaa xaggaasaynu u qaadaynaa. waxay noola mid noqonaysaa marka 19y ayaa waxay kula mid tahay 30 laga jaray 15.
soddon haddii aad 15 ka jarto 15 baa kuu soo hadhay marka 19 y ayaa waxay noola mid tahay 15 keliya xaggan waxaynu u qaybinaynaa qiimaha la socda y halkanna waynu u qaybinaynaa y markaa waxay noola mid tahay 15 loo qaybiyey 19 qiimahan marka waan xifdiyeynaa ama meel gaara ayaynu ku qoranayn waxa weeyaan markaa y waxay noola mid tahay 15 loo qaybiyey 19 waa iska masaxinaa inta marka y waynu haysanaa hadda aynu soo saarno egas labadan isleegna taan doonaan qaadan karnaa fasaraba marka la iska qaadano waxa weeyaan marka 3 times 3 egas taan idhaahday plus 5 times hadda intanaynu ku dhufanaynaa 15 loo qaybiyey 19 ayaa waxay kula mid tahay 6 y 3 egas ayaa markaa waxaa loo geynayaa labadan oo la isku dhuftay 15 iyo 5 haddaad isku dhufato waa 75 19 oo qaybi ayaa waxay kula mid tahay 6 halkaa hal oo qaybi dabeedna waxaan raadinaynaa isirka ugu yar ee ay wadaagaan 1 iyo 19 waa 19 19 baad marka dhinac kasta u qaybinaysaa waa labada dhinacba 19 ayaan hal u qaybinayaa waa 19 19 baa 3 egas ku dhufanayaa waa 57 egas mar kale 19 ayaan u qaybinayaa 19 waa hal baan 75 ku dhufanayaa waa 75 waxay la mid tahay 6 laakiin halkaas sax weeyaan egasta inaan kiilooban mooday laakiin waa la socota waayahay marka aynu dhinac kasta haddaba ku dhufano 19 xaggan 19 ku dhufo xagganna 19 halkan labadan 19 waa isla baxayaan waxa kuu soo hadhay marka waa 57 egas plus 75 ayaa waxay kula mid tahay 6 iyo 19 haddaad isku dhufato 114 weeyaan deedna 75 kaasaan wareejinaynaa waa 57 egas 57 egas ayaa waxay noola mid tahay 114 laga jaray 75 114 iyo 75 haddaad kala jarto sorry 5 maaha waa 57 egas haddaad labadan kala jarto waa 39 waayahay dhinacan marka waxaanu qaybinaynaa 57 dhinacana waxaanu u qaybinaynaa 57 57 iyo 57 way isla baxayaan waxay noo soo baxaya halkan markaa 39 loo qaybiyey 57 qiimahana meel gaara ayaynu ku qoranaynaa si aynu ugu hubino inuu sax yahay waxaynu soo saarnay iyo inuu khalad yahay waayahay qiimahan egas aynu horta qorano egas waxay noola mid tahay 39 loo qaybiyey 57 labadii qiimaba hadda waa haysanaa marka maadaama labadii qiimaba haysano aynu ku bedelanaa labada xaraf ee meesha inoo yaala ama labada doorsoone ee inoogu kala jira labadan equation aynu doonaynu soo qaadan karnaa bal tasaraba aynu soo qaadano 3 lagu dhuftay intay egastu tahay qiimaha egastu wax weeyaan 39 loo qaybiyey 57 loo geeyey 5 waa isla egta sare waxaynu isticmaalaynaa 5 lagu dhuftay laakiin waxay dhibtu imanaysaa haddaad labadan qiime isku khalado tusaalehaan adoo equationka sare isticmaalaya ayaad intaad qoratay 3x ayaa 2y u geysay marka qiime khaldan ayaa kusoo baxay waana khalad dhici kara ogow marka waa iska ilaalinaa khaladka noocaasa 5 waa halkaas ayaa waxaynu ku dhufanaynaa doorsoomaha y qiimihiisa waa 15 loo qaybiyey 19 ayaa waxay kula mid tahay
lix. intan marka isku soo qaybi ama isku soo dhufo waa inay lix soo baxdaa. inay dhinaca bidixdu waa inuu la mid noqdaa dhinaca midigta. labadan isku dhufo waa 39 lagu dhuftay 3 27. labaad sidataa 90. labadan isku dhufato waa 9. 9 waxaad u geysaa labadaa sidatay 117. 117 loo qaybiyey aynu iska hubino weli 117 inay tahay waa 39 lagu dhuftay 3. 117 waa sax. loo qaybiyey 57 balaas labadan isku dhufo waa 75 loo qaybiyey 19 ayaa waxay kula mid tahay 6. dabeedna labadan isirka ugu weynay wadaagaan ayaad raadinaysaa 57 iyo 19. 57 iyo 19 isir ugu weyn oo ay wadaagaan ma jiro oo aan ka ahayn in labadooda la isku dhufto. dabeedna labadooda haddaad isku dhufato 57 iyo 19 waxa kuu soo baxaya 1083. 1083 ayaa waxaad u qaybinaysaa 57. 19 wayaan 19kii baad ku dhufanaysaa 117. 19 lagu dhuftay 117 waa 2223. waxaad u geynaysaa mar kale 1083 ayaad u qaybinaysaa 19 waa 57. 57aad ku dhufanaysaa 75 waxa weeyaan 4275 ayaa waxay kula mid tahay 6. marka intan markaad labadaas ay isku geysay oo qaybiso 1083 waa inay 6 kuu soo baxdaa. haddii kale qiimayaashani waa khalad. way aynu sii wadno waa 2223 haddaad u geyso 4275 waxa weeyaan 6498 loo qaybiyey 1083 ayaa waxay kula mid tahay 6. way 6498 loo qaybiyey 1083 6 weeyaan. markaa 6 waxay noola mid tahay 6. qiimayaashaas marka saasay sax ku yihiin. labadan haddaad isku qaybiso waa 6 waxaana la doonaya inay 6 inoola mid noqoto. marka 6498 loo qaybiyey 1083 waxay kula mid tahay 6. waayo labadan marka la isku qaybiyo waa 6. 6na waxay kula mid tahay 6.